dagaalkan ayaa sababay khasaare iskugu jiro dhimasho iyo dhaawac waxaana uu dagaalkan ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan oo lagu magacaabo Aqable sida ay sheegeen mas'uuliyiinta deegaankaasi. dagaalka ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana uu dagaalkan dhexmaray al-shabaab iyo dad xoolo dhaqato ah kadib muran dhexgalay sida ay sheegeen dadka deegaanka. inta la xaqiijiyay dagaalka waxaa ku dhintay 2 qof oo xoolo dhaqato ah halka al-shabaab uu khasaare soo gaaray dhimasho iyo dhaawac sida ay sidoo kale dadka deegaanka u xaqiijiyeen warbaahinta. isku dhaca ayaa yimaaday kadib markii dadka reemiga ay ka biyadiideen codsi kaga yimaad al-shabaab kaas oo ahaa inay bixiyaan xoolo iyo dhalinyaro ka barbar dagaalama al-shabaab. deegaanka Aqable ayaa qiyaas ahaantii waxa uu magaalada Beledweyne dhinaca galbeed kaga beegan yahay 90 kiiloomitir ee xarun goboleedka gobolka Hiiraan. al-shabaab iyo dadka deegaanka ayaa dhawaan dagaal khasaare dhalay sidoo kale waxa uu ku dhaxmaray deegaanada dhaca galbeedka Beledweyne waxaana dagaaladani ay imaanayaan xilli dagaalamayaasha al-shabaab ay soo buux dhaafiyeen gobolka iyo deegaano ka tirsan bartamaha Soomaaliya. ma jirto wax war ah oo si rasmi kaga soo baxay saraakiisha ciidamada dawladda ee ku aadan dagaalka dhexmaray al-shabaab iyo xoolo dhaqatada deegaanka Aqable ee gobolka Hiiraan. dhinaca kale madaxweynaha dawlad goboleedka Hiirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa dadaal adag ugu jira ansixinta golihiisa wasiirada iyadoona saacadii aan soo dhaafno uu kulamo la qaatay xildhibaanada iyo waxgaradka deegaanada Hiirshabelle ee ku sugan magaalada Jowhar. Maxamed Cabdi Waare ayaa ka dhaadhicinaya xildhibaanadiisa sida ay kalsoonida u sii lahaayeen 57 wasiir oo 5 ka mid ay xilka iskaga tageen saacado markii uu magacaabay bishii aan soo dhaafnay. madaxweynaha dawlad goboleedka Hiirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa shalay ilaa xalay wuxuu waday kulamo uu si gaar ah ula qaadanaya madaxda ugu sareysa dawlad goboleedka Hiirshabelle sida gudoonka baarlamaanka ku-xigeenadiisa madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo sidoo kale waxgaradka siyaasiyiinta qaybaha kala duwan ee bulshada Jowhar iyo xildhibaanada. welina ma jirto wax natiijo ah oo kulamadaasi ka soo baxay. kulamada inta badan saxaafadda ay dibajoog ka tahay aan loo ogoleen waxyaabaha markaasi ay labada dhinac isla meel dhigayaan ayaa inta badan waxay tahay dhaadhicinta iyo sidii markaasi ay wax meel isku dhigi lahaayeen ansixinta golihiisa wasiirada cusub madaxweynaha iyo xildhibaanada Hiirshabelle goorsi horeysay waxay tilmaameen inay gaashaanka ku durureen golaha wasiirada uu soo magacaabay Maxamed Cabdi Waare. waxaa la filayay in maanta Sabtida la ansixiyo golaha wasiirada saacadii caaqaba taagan awgeed ayaa mar kale dib u dhacday lamana oga xilliga rasmiga ah la ansixin doono golaha wasiirada dawlad goboleedka Hiirshabelle oo magacaaban ku dhawaad muddo 30 cisho ah taas oo keeni karta jahawareerka siyaasadeed ee wali ka taagan Hiirshabelle. Cabdishakuur Maxamed Xasan telefishinka caalamiga ah Saab TV magaalada Buulaburde gobolka